jiro waa eelkii waa qabri waa qofka meydka meeshii la dhigayay weey waa meel aan qabiil lahayn oo hanti aan lahayn oo tol aan lahayn oo ciidan aan lahayn oo ciirsayaash lahayn ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xirnayd ma ahane waxa loo baahan yahay meesha inaan soo amal falno waad aragteen kaliya ayaa meesha lagu seexinaya wax amal ah oo khayr mooyaan wax kale wax ku tariyo ma jirto qof walba oo khayrkii ku dadaal halkan ha loo soo sahay qaato eelka ciriirigiisa waad aragtaan kulaylka hadda dhididka asagoo dariishada noo furan tahay ayaan kulaylka iyo dhididka aan dareemay aad yaabaysan adhowta markii intii la xiriir kaliya lagaaga tago oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ya adiga bas isku qaali noqotaan qofku waa inuu ka fikiro wuxuu halka uga jawaabi lahaa walaalayaal halkan waxay rabaan dadaal bay rabtaa inaan acmaasha adduunku waa daarul amal inaan amal u soo samaysano halkan way meesha loo soo shaqaysanayo qabriga laba ka bixi mahayo biir nabiga calayhi salaatu wasalaam imma rawdatun min riyadil janna beeraha janna kamida inuu noqdo wa imma hufratun min hufari naar iyo inuu noqdo boholaha naarta kamida labada mid ka bixi mahayo qof walba halkan kaliya waa lagu soo dhigi doonaa adiga kaliya waa lagu seexin doonaa meeshan way xiri doonaan ayagoon ku naxariisanaynin wayna ka tagi doonaan ehelkii baa ka tagaya talka aad u eexan jirtaa ka tagaya qabiilkaad aaminsanaydii wixii dhan baa kaaga dhaqaaqaya adiga camalkaaga noqonaysa waxa loo baahan yahay camalkeena hagaajisano halkanna wallaahi qof halkan soo galay wacdi oo ma dhimana inta yarta aan dhax fadhiyo wadnaha saa noo badbooday cabsidana haysa dhiidka naga dacay waad aragtaani war kulaylkaasi waxa weeye tadkirayga tahay naftaydiya tiinaba taydana waa dhax dhigayo waan dhax seexiyay oo waan tusay in halka la dhigi doono tiinana waan u soo diray ilaahay laga boqo subhanahu wa ta'ala halka ana amal fiican loo soo hagaajisto halkaasi waxa weeye guriga cidlada waa guriga waxshada hadaa amal fiican aad la imaanin hadaa amal fiican la timidna kii adduunyadii wax oo dhanba waad ka reysanaysaa dibkiisa iyo madaradiisa ilaahan ka boqna banaankan hadda wax yar u baxaya waad aragtaan meesha aan ka soo baxayo waad aragtaan kulaylkeeda iyo meesha aan taaganahay ilaahay halka noo fududeeyo insha Allah ilaahay halka noo fududeeyo ilaahay meydka u horeeyo la keenayo rawdatan min riyadil janna looga dhig nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qabriga laba mid ka bixi mahayo imma rawdatun min riyadil janna inuu yahay beeraha janna kamida inuu yahay wa imma hufra god iyo boholaha naarta kamida inuu yahay halkaas qofka su'aalo lagu weydiinaya haduu ku guuleystana waxna dhan waa loo waasicinaya oo meeshii uu joogi jiray meel ka qurux badan ka udgoon badan ka fiican buu helaya haduu su'aalaasi ka jawaabi waayo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala xiriir wala lahayna waxan waa lagu soo ciriirinaya ciidan iyo wax dhan waa la isu keenaya war halkaan u soo amal falno waa meesha ugu dambaysa waa meesha la dhigi doono daaraha iyo wax dhan waa ka soo tagi doonaa iyo qabiilka iyo dhaqaalaha halkaasana lagu reebi doonaa halkaasana looga kala tagi doonaa qof dhihi waan la gali ma jirto awlaadii wax dhan iyo tolka way ka tagayaan cashiirada kaliya iyo amalkaaga isku